labada golena way ka xun xukuumadda aad bay uga xun yihiin way madaxdoodu shir gudoon mari labada gole midna madaxdooda kaanaga noo madaxay shalay buu 15 cashu ka joogay dibad shalayna wuu dhoofay intuu lacag badan banka ka qaatay ayuu iska dhoofay shalayna kaanaga noo madaxay shalay buu 15 cashu ka joogay dibad shalayna wuu dhoofay intuu lacag badan banka ka qaatay ayuu iska dhoofay shalayna waxaad muddo halkaa in dalxiistiro ummadii dalka lahaydna ay baqtiyayso midna waa kan kursiga doonayo isna inta badan buu golaama yimaado horta marka hore aad waxay nagu dhibaato ah xukuumad ma hayno golayaal ma hayno shacab wanaagsan oo wixii arkaan ka damqanayana ma hayno mashaakilkayna haystaa waa ka ilaahayna xumaanta wuu og yahay oo baadilkaynu isku sameynayno dulmigaynu isku sameynayno ilaahay wuu arkaado markii aynu isna wanaagsanaysan roobkiiba idin daayna roobkana cadheeri buu ku noqdo aad buu cadheenoogay dhulka badankiisa hore ma abaar harkan ma aynu argeysa iyo meel la yiraahdo harashiikh inta u dhaxaysa oo dhowr maalmood loo kala socdo waa abaar dhulka badankiisa waa abaar waxaan ugu baaqayaa ama golayaal ha sheegtaan ama xukuumad ha sheegtaan ama madaxweynaha ku xigeen ha sheegtaan ummadda xilkeeda in la iska wareejiyo oo ummadii maanta meel halis bay maraysaa ninka maanta mas'uulka sheeganayo ilaahayna wuu kula xisaabtamaya ummadaaduna way ka dambaysaa in kastaana ummad taariikh leh oo wax qoraysa aanan arkaynin ummaduna way dambaysaa marun bay taariikhda qori iyada taariikhda wax qoraysa xilka ummadda in la iska wareejiyaa baa haboon dadkana gaajo u dhamaanaya waxaan kaloo ka xumaa shalay xirsi waxa laga joojiyay caynaba isagoo dawooyin iyo biyo raashin jira dhakhtar baa uu yiri galo wax u gee waa laga hortaagay askar baa iska hortaagtay dadka meesha ku dhimanayaana waa dadkoodii kan wuxuu sidayna waa dadkoodii nasiib darooyinka badan ee inagu dhacday bay ka mid tahay wax aad looga xumaadaa bay ka mid tahay bal ummadii shuban baa ku dhacay gaajo iyo waxa keenay taal daro nafaqa daro kii wuxuu sidayna waxa laga iska hortaagayaa halkii dhakhtarka ahayd masiibooyinka inagu dhacday bay tahay waxaan kaga baxayaa qabyaalada wax la yiraahdaa wax alla wax heero ay leedahay ma jirto halka waxayna dhigay hadaynu reer waqooyinahay ama aynu jilibka dhexda ku jira caloosha ku jiranahay qabyaalad bayna dhigtay maalintii ninkii reer boorama uu dalka xukumayay dawlad baynahay maanta dawlad mani wax alla waxaynu ku abtirsano ma jirto cid lama saaxiibnihin xiriir cid aynu leenahay ma jirto inagii baa maanta koonfuri inay dhakada maalin dhow inaga qabsato dabadna cagta hoosteeda maalin dhow leena geliyaa baynu u dhowni xigtaa shirka waa la inaga reebo waxa ay doorashadii baa geli weeyday wax dhaba doorashadii inaga dib u dhignay labada golaha hayga dib u sii dhigay oo maalin walba kordhinayay